ما بعد كلي وحنا كدغنتahay fursad aynu siinayno ahlul masjidka dadka masaajidka ku tukada ama ardaydaba si wixii aynu garan karayno aynu isu dhaafsano xagga dadweynaha dabadiya gudahaba iyagu qolo waxaanu islaam maalin walba qolana usbuuci 3 jeer qoliyaha social media iyo Facebook iyo wigi hal mar baan u jawaabaa TV-ga idaacaduna midba waa hal mar halkan maxkamadana aniga culimada kala fadhina maalin walba 3 saacadood qofkii talo u baahan kii su'aal u baahan kii garsoor u baahan ayaanu 3daas saacadood siinaa marka dadka masaajidkuna si aynaan isu waayn iyaguna bishii hal mar wixii ardayda ku adkaada iyo wixii dadweynuhu su'aal ay leeyihiin oo macquul ah su'aaluhuna waxay ku habboon yihiin baahida ilaa waa waqti baxaya dadkana kaalin baad ka buuxinaysaa in wuxuu qofku u baahan yahay oo waaqico jira ay su'aashu noqoto ayaa wanaagsan waxay la tahay haddii yawmi iyo usbuuci iyo shahri ay tahay in ay nagu filanta insha Allah culimada kale inaynu iyagana ka faa'iideysay inaynu isku day wiigiiba hal muxaadaro ama cidii kale aqooyahana wax inoo kordhin karta insha Allah si 7 cisho masaajidka wax uga socda oo diin iyo dunyaba loo kala faa'iideysto haddii alla ka dhigo tamarta iyo awoodda aynu haysanay uga faa'iideysano insha Allah wacyigelintuna aad bay muhiim u tahay iyo wax sheegmadu marka de qofku waa inuu soo taago su'aashana uu ka ilaaliyo dheeraynta oo uu soo koobo khayrul kalaami ma qalla wadalla ujeedadiisa oo qofku waa inuu ka hadlaa iyadoo wax jira ay tahay wuxuu ka hadlayaa ka soo su'aalaha waynu soo aragnay aadaabtay leeyihiin su'aalo la yidhi isweydiinina iyo qaar la yidhi hal isweydiiyo waynu soo aragnay oo duruustii aynu ku soo qaadanay marka su'aalaha loo baahan yahay ee bayaaminta u baahan weeye kuwa mudan inaynu isweydiino iyo qofku inuu soo gaabiyo iyo si aynu waqtiga uga faa'iideysano 50 daqiiqo aynu haysanaa insha Allah oo maghribkii iyo cishaaga u dhaxeeyay de ka su'aal doonaya ku sii xiga laftiisu inuu soo dhawaado oo kuyuga uu soo qabsado isa soo agtaago kaasi markuu ka baxo anu waan qoranayaa degdeg baan u qoranayaa insha Allah kalena kalena istaaga 5 su'aaloodba maraan israaciyo tartiibtaas aynu samayn doonaa dadka kale meelaha joogaana way daawan doonaan oo iyana way ka sii faa'iideysan doonaan inahaasuun baan xusi lahaa insha Allah iyo inuu Ilaahay nagu asturo wixii aynu garan weynana waynu xawili wixii aynu garanana waynu sheegay Allah inagu asturo wa tafadhalu insha Allah magacaygu waa hebel buu qofku leeyahay waxaan weydiinaya بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد المقعي عبد الرحمن جامع سؤال شيخ ويديني يا وحوي صغيرك مرك يا هاي متكلياتا حجاب مو نقنيا والدكيس afka ku yar dhawe والدكيس حجاب مو نقنيا مركو يا هاي متكليا سهدي labada waalid ma miyay tahay mise hooyadu kaliya tuu noqonaya su'aasha labaad sheekha weydiinaya waxa weeye dadku waxay ururiyaan iyagoo xaafad amba reer ahaan ururinaya sako meel bay isugu keenaan iyagoo meelo kale fog ka keenaya sakadaasi waxay siiyaan xigtada cidda u xigtada markaas sideeba taana sharcigu muxuu ka qabaa iyadana su'aasha saddexaad sheekha weydiinaya waxa weeyaan dacwatu shaarica marka la qabanayo meel suuqa oo dadkina hawlahoodii ay wataan amba ay mashquulsan yihiinba iyada qudheeda muxuu sharcigu ka qabaa su'aasha ugu dambaysa waad ka kala dayn malaha
بسم الله الحمد لله رب العالمين. مقعد عبد الرزاق خير الدرير. سؤال شكوى الشيخ ويديني وحوي هذه الشرلوك بنان مقالوينك كياله dadku inta badan way iska qabsadaan hadhowtana way iibiyaan lacagta ay ku iibiyaan sharci ahaan maxay tahay su'aasheeda labaad waxa weeye hadii jeer salaadaha jamacada dad baa ka soo habsaama markay soo habsaamaan aqoonka soo dhow yahayna dadka aad u jiirjiiraan ama boos qof eeganayo markaas oo ka soo horeeyay xoog ku galaan taasna maxay noqonaysaa السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. سؤاله أيوب الغلاج عامان القصيصة. ما دام العلماء دي وولادات كم استهيكم محكمتها هي برلمان هي الدولة دي من دول بني ساركستان. شرعينا الإسلام كأها أحكامتنا الإسلام يا أحكامتنا حكمتها هي له. حتى يقولوا يا الطهي حتى الحويرة الطهي حتى عد كلا الطهي. سيدي الله وافج لها على كائنات وحوش كقرية هاي يا واي ومن لم يحكم بما أنزل الله أولئك هم الخاسرون أولئك هم الفاسقون أنت أيضا إيش كنت ضبطت بيه النفس شو أنت هاسون بامبل قضباط هبل يو أحكام تسيدي لزوا فقر لها إلهي نجد بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي بام حضله دمانتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة. مقعي وعمر علي خليف. شيخ دلكين أبارة كتشرة أذبه سن. dadku inta badan xoolaha markay wax cunaan iyo wax abaan waayaan qaar baa ka guriga ka taga xooliyo intaal daran iyo wadooyinka dad baa jira xoolaha laga guuray soo urursada oo iyagu wax siyo dhaqaaleysta marka dadka nooca ku shaqeysta diintu waxay qabtaa su'aasha labaad qof gaala dhalashadiisa in loo dabaaldego oo xaflada loo qabto iyadana diintu waxay qabtaa alaykum salaam inta saan ka jawaab insha Allah su'aalaha Cabdiraxmaan ta hore waxay ahayd halka mid miyuu shafaaco qaadaya waan rajaynaynaa inuu shafaaco qaado insha Allah waa musiibo ku dhacday qofka laakiin waa xadiidkii aynu xalay soo maraynay labu sheegay ka laftiisa lagu qadi maayo de qofka markay musiibo ku dhacdo ilaahay bedel buu siiyaa labada waalidba miyuu shafaaco qaadaya ha ilaahay waxba kuma adkaadaan dalika fadlullah yuutiihi man yashaa marka ilaahay fadligiisu uu ballaaran yahay sida bani aadamka maaha iyo makhluuqa labada waalidba wixii loo niyoodo iyo wixii xaggooda ka soo jeedaba ilaahay wuu aqbalaya shafaacada waladka labada way heli sakada ayaa dadka qaarkood qabiilooyinka qaarkood ururiyaan oo aqaaribta siiyaan ma ansaxaysaa dhib ma leh kol haddii ehelkeedii ay gaadhayso oo dadka la siinaya ay yihiin dad fuqaro ah hadduu sideedii qole qur-aanku uu sheegay qayb ka mida ay yihiin dhib ma leh wuxuuna muhiima inaan la luunsan dadka qaarkood baa ku dhexdhaca wax iska iibsada kuba qayila hadday doonaanoo ku marqaamo lacagtii ay xoolaha ay iibiyeen markaa dee intoo la qaado wixii yara kharash noqdo mooyaane kharash xaqiiqiya wixii noqdo mooya wixii kale waa in fuqarada iyo masaakiinta la gaadhsiiyo oo sakadu dee waxaa la yidhi sadaqa bixiyo sokoyo si alaqrabuuna awlaa bilmacruuf markaa dadkan aqaaribta iyagaa macruufka waajibiyo sunnaba awla ku ahe waa la siin karaa welibana wax muddo kara in la siiyo weeye oo dee qofkii ha dhowto uu ku xisaabtami karo oo xoolo u noqon kara dacwatu shaarica ma la samayn karaa haa kuwa heesaaba sow kuwa sameeya kuwa heesaya halkaa ka buuqaya shaarica waa wixii gaabkaa lagu buuxin lahaa weeye dadka inta masjidka timaadaa way yar tahay waa in kooban oo istiray laakiin intuu shaydaanku halkaa calanka uga taagu suuqa ku xidhay in la isdul taago oo laakiin dee meel munaasiboo ay iman karaan ilaa meherad horteedii iyo meel lagu buuqi maaye meelo bannaan oo loo banneeyo xataa xukuumadda laftigeedu iyo maamulku uu saacido oo waa waajibkoodii oo dadkaa ama qaadka cunaya
ama suuqa maraya ama hablaha iyo wiilasha isjiidanaya ama dadka edabdarrada ku jira inay codka khayr kala maqlaan aad bay wanaagsan tahay mana noqonayso tii walqow fiihdiye waxa weeye wax wanaagsan oo dhagahooda ay kusoo dhacayaanoo lacalla kelima yahtadi biha annaas waxaa iska dhacda dadka qaarkood inay kusoo dhowaadaan ay dhegaystaan ay halkaaba hanuunka kala bilaabaan cabdirasaaq su-aalihiisa toore waxay ahayd dadka qaarkood baa dhulka iska qabsada markaasay iibiyaan masaxbaa waa mushkilad caam oo soomaalida haysata dantii guud iyo asadkii ummadda ama hantidii ummaddu ay lahayd oo dee dhulka ah oo mustaqbalka xataa dadka iman doona ay nala lahaayeen in kooxi iska xidhato kadibna ay sarriftaan oo iyagoo ay ku noolaadaan ay jaad ku cunaan oo balwad ku cunaan oo cidday doonaan ay ku dilaanoo waa arrin dulmiya waa dulmi nebiguna calayhi salaatu wasalaam waa kii xalayta ka hadlayay aynu axaadiida soo maraynay lacana allahu man hayara manaara alard allaha nacdalo dhulka iyo calaamadihiisa qofka wax ka bedela man akhada dulman shibran min alardi uwiqahu min 7 ardiin calaa macna xadiid qofku hadduu taaka dhula ku qaato dulmi maalinta qiyaamaha qoorta loo suraa marka qofku waxa uu qaadan karaa wixii sharci dhammaystiranna uu helo camiraadna uu ku sameeyo yumlaku alardu biliqtaaci waalicmaar sida cilmiga fiqiga macruuf ku ah dhulka labaa lagu milkii karaa inuu qofku camiro hadduu beer yahay hadduu daar yahay hadduu warshad yahay inuu tacmiir sameeyo maalgelin ku sameeyo xoola ka galaan iyo inuu sharci dhammaystiran u samaysto labadaa midna haddaanu jirin mana milkisana mana iibin karo qofka ka iibsanayaana xaaraan buu ku saacidayaa dee qof dhisanayo duruufi ku qabato wax kala waaye mooyaane markaa mana cuni karo mana ku cibaadaysan karo leanno maba lahaba wax ummadi ay wada leedahay buu boobaya marka mushkiladda dhulku waa nooca la iska ilaaliyo qofka imanaya masjidka haddii uu cashar u imanayo iyo hadduu khudbad u imanayo iyo hadduu salaad u imanayaba aadaab buu leeyahay aadaabu lmasjidi fi lislaam baa jira aadaabta masjidka ee islaamku jideeyey qofku markuu yimaado waa inuu safka halka ugu soo horeysa ee bannaan buuxiyaa hadduu waayana kuwa kusii xiga atimu safa alawala falawal buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam qofka safka dambe ku jira laftiisu dee hadduu kam hore buuxin waayo kaalintaa isagaa banneeyey kaalintaa ama waa inuu buuxiya ama ciddii kale timaadaa way buuxinaysaa leanno amar baa jira atimu safa alawala falawal safba safku ka horeeya buuxiya markaa qofka xagga dambena fadhiyaana waa inuu buuxiyo hadduu buuxin waayana qofka kale isaga oo si aadaabla u imanaya waa inuu buuxiyaa su-aalaha ninkaa odayga ah uuna weydiiyey in magaciisa inoo sheegin waxa weeye wuxuu ka hadlayaa shareecada islaamka maxaa loo waafajin waayey qaanuunka dowladda iyo maxkamadaha dee waa weydiinaynaa odayaashayna xukume waxaynu leenahay maxaa u waafajin weydeen ila innagu shacabkii la xukumayaynu nahaye qur-aankii iyo sunnadiina waynu haynaa waana ku amranahay waana waajibina saaran waxaa loo soo dejiyeyna waa tadbiiq kitaabka ilaahay in la rumeeyo oo la barto oo la baahiyo oo lagu cibaadaysto la isku daweeyo iyo talixaad oo in lagu camal falo lixdaa cidda kala reebtaa waxay soo galaysaa waqaala arasuulu yaa rabbi ina qowmi ittakhaduu hada alqur'aana mahjuuran nebigiibaa cawdo wuxuu idhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay ow ummaddaydii waxay qur-aankii ka dhigteen miday ka haajireen markaa hijraanka iyo ka tegiddaa culimmadu waxay idhahdeen lixdaa arrimood baa laga baaqsanayaa xikmadda loo soo dejiyo waa inuu dhaqan noqdo waa inuu ina xukumo waa inuu ina saxo caaisha waxay leedahay nebiga markii ka warmaysa kaana khuluquhu lqur'aan akhlaaqdiisu qur-aanka ahayd hadduu masjidka joogo hadduu xaafadda joogo hadduu suuqa joogo iyo hadduu xafiiska joogo ama meeshuu ummadda ka xukumayaba waa waajib u yaallo ilaahay kala xisaabtamayo dadka muslimka maamula cumar su-aashiisu waxay ahayd marka baadiyaha la joogo waxaa dhacdaa xoolaha qaarkood in la yskaga tago oo looga tago weyd ay noqdeen daraaddeed markaa dad baa soo urursado biyana siiya calafna u dhiga iyo cunno sidaana ku badbaadiya markaasay noqdaan dee wax la tamarinayo oo la intifaacsan karo ma yeelan karaan qolyahaasi haa
waxaa la yidhaahdaa almaalu daayic yajuusu akhdu xoolaha la yska dayacee laga tage la naco qofka qaataa xaq buu leeyahy daliilkeedu waxa weeye rasuulku sala allahu calayh wasalam xabad timira buu halkaa ku arkay wuxuu uhi waan cuni laha haddaanan ka baqayn inay timirtii sakadati ilaan sakadu rasuulkii aalubeytka xaaraan bay ka ahayd markaa wax kastoo la yskaga tago haddii aad qaadato la naco adigaa iska leh leanna qofkani bahalku uga tegayba su-aasha kale waxay ahayd xafladda qofka gaalka ah haddii wakhtigu dhashay ma loo xafladayn karaa ma lagala qaybgeli karaa maya waa dhaqanka gaalada ciidulmiilaad maalinkaa uu qofku dhashay inuu xafladeeyo waa shuqulka gaalada nebiguna calayhi salaatu wasalaam uu inooga diga wuxu uhi man tashabbaha biqowmin fahuwa minhu qofka qolo isu egeysiiyo shabaha iyagu ka mid yahay markaa waxyaabaha ay caanka ku yihiin bay ka mid tahay ee aynu ka feejignaanayno ee ay tahay inaynaan carruurteenna u horseedin si ay noogu daydaan wallahu aclam